imika aimatu lmasaajid iyo in badanoo ducaadda ka mida masaajidada waxay ku arkaan dad muslimiin oo salaada khalkhaldaya waxaana laga yaaba inaanay xil iska saarin inay dadkaas salaada baraan waanad ogtay nebigu calayh isalaatu wasalaam ninkii طumaaniinada xasilaada lagu xasilo rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo fadhiga laba sujuudood udhexeeya ka tegey salaada dedejinayey jaamacadda casharkaad ku qaadato iyo ka masaajidku xagga xaasilinta cilmiga isku mid maaha ardayda masaajidda wax ku barata iyo kuwa jaamacadaha wax ku barta iyagoo isku kitaab dhiganaya isku aqoon marna ooma noqdaan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila calى الظaalimiin slى اllahu عalى nabiyina mxamed wعalى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ilaahay baa subxaana wa tacaala ammaan iyo mahadnaq ba aynu ujeedinaynaa allah subxaana wa tacaala inaga dhigay bani aadam uu karaameeyey inooguna nicmeeyey nicmada iimaanka iyo islaamnimada ina waafajiyey towxiidka iyo sunnaha in ilaah oo qura la caabudo subxaana wa tacaala wixii diinana lagaga daydo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo ilaahay uu usoo diray inuu dadka baro inay ilaah oo qura caabudaan waxa ay tahay ilaahay inay ku caabudaan iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala ay u caabudayaan nabigeeni maxamed calayhi الsalaatu wasalaam baynu ku saliyeynaa waxaanaynu isxusuusinaynaa caawa inay tahay habeen jumcaha berri oo ka dambeysaana waa maalinkii jumcaha rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi أkثiruu min الصalaaةi calaya fii yowmi walaylaة اljumca salligaad igu saliyeysaan farabadiya habeenka iyo maalinka jumcaha iyadoo si guud laynoo amray rasuulka calayh الsalaatu wasalaam inaynu ku salino oo ilaahay uhi in allaha وmalaaئikatahu yusaluuna calى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu عalayhi wasalimuu tasliima rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam uu inoo sheegay haddaynu hal mar ku salino in ilaahay 10 jeer inagu saliyayo ilaahay subxaana wa tacaala ina amaanayo inoo naxariisanayo man salaa calaya waaxidaة salى اllahu عalayhi biha 10 si gaara ayaa habeenkii maalinka jumcahana laynoogu asteeyey oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inoogu dhiirigeliyey taa dabadeed waxaan u ducaynayaa walaalaheen ilmo ibraahim ciise rashiid iyo walaaladii horena waa ugu ducayna waanaynu ducaynayna waanay naga mudan yihiin waayo wax wanaagsan bay ha noqdo arrin cibaado ilaahay ugu dhowaanayaan laakiin waa arrin nafcigiisa iyo waxtarkiisu iyaga aanu ku koobnayn dadka muslimiintaana nafcigiisu waa gaadhay haday tahay mid ilaahay ku caabuda ku tukada ilaahay ku xusa qur-aan ku akhrista iyo hadday tahay mid cilmi uu ku dhigayo ku cibaadeysta iyo mid cilmi uu ku baranayo ku cibaadeysta waxaana leeyahay haniian lakum ilaahay baa subxaana wa tacaala nicmadaa idinla doonay masaajidada laftoodu iyo dadka dhisayaaba way kala nasiib badan yihin nin ganacsatada magaaladeennan ka mida baa wuxuu igu yidhi sheekh waxaad ii raadisaa meel aada u dad badan oo masaajid aan ka dhiso waanuu sameeyo wuxuu yihi meheradda aan suuqa hoose ku leeyahay iyo taa xaggaa sare xaafadaha agtooda aan ku leeyahay isku dakli maaha masaajidaduna waa saas oo kale buuhi isku dakli maaha yacanaa xagga ajarka masaajid dad badani ku tukanayaan dad badani ka faa'iideysanayaan oo cilmi lagu akrinayo iyo masaajid jamac yar bal masaajidada qaarkood meel cidlaabay ku dhacaanba oo cidibo kuma tukataba
marka masaajidka la dhisayana waa in loo meel dayo oo rasuulku wuxuu sida xadiidka caaisha ku xusan caaisha waxay tihi amara الnabiyu bibinaaءi اlmasaajidi fi اduur nebigu wuxuu amray masaajidada in laga dhiso meelaha ay qabaa'ilku degan yihiin fii masaakin اlaxyaa madiina waxaa loo deganaa qaabka reeraha ayaa loo deganaa oo qolaba meel ayay deganeed marka meelaha dadu ku urursan yihiin ee masaajidku looga baahan yahay tacmiirna uu ku helaya in laga dhiso rasuulku amray wa an tunadafa watutayib waxaa kaloo amray in la nadiifiyo oo lana udgooneeyo si ay naftu ugu xasisho oo qofku cibaadadana uu dhadhamiyo oo ay ugu macaanaato oo waxyaaba munafiraadka ee nafta didiya masaajidka in laga ilaaliyo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amray toon iyo basal kii cunay gurigiisa ha ku tukada buuri falaa yaأtiyana masaajidana waliyusalli fii beyti masaajidada yaanu iman gurigiisa ha ku tukado marka in masaajidkan halka inaad ka dhistaan ilaahay idin fudeeyada waafajiye waa nicmo weyn oo ay tahay ilahay inaad uga mahadnaqdaan waxaa kaloo iyaduna nicmo kaloo weyna waxaa jira masaajido suuqa iyo meelaha lagu badanyay ka dhisan laakiin salaada un lagu tukado oo dabeetna laga dareero waxaa kaloo ilaahay idinku nicmeeyey masaajidkiinu inuu noqdo masaajid cilmi uu ka socdo har iyo habeen oo sidii masaajidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ugu camirnaa cilmiga iyo cibaadada labadiiba ku camiran iyaduna waa nicmo kale ay tahay ilaahay subxana wa tacala inaad uga mahadnaqdaan waxa laaliyo wixii aad ku dari kartaana inaad ku dartaan bishaarada fiicanna waa iyadana waa idinku hambalyeyna waan idinku ducaynayaa masaajidku in la kordhiyo wuu u baahan yahay oo imika anigu dabaqa sare ayaan ku tukaday halkaas sallaanka marka laga soo dhaadhaco rooggaa cusubi durba wuxuu noqday wada boodh markaa saasaan u eegay waxaan isweydiiyey taba maxaa sababay inaan xagga sare ka soo daadegay baa wuxuu ihi dusha sare ayay dad badani ku tukadeen waa sadxiga samada u furan cawihii baa ka buuxsamay marka waxay ku tukadeen marmarka dushiisa oo boodh marsan yahay boodhkii cagahooda boodhkiila bay soo daadegeen deetana halkaa sallaanku kaga soo dhaadhacayo dabaqan inaga sarreeya haddaad imika egtaan waxaad moodaa rooggu inuu yahay roog 10 sannadood la isticmaalayay caawaana la furay iyaga laftooduna waxay ahayd markay lugooda boodha ku arkaan intaanay roogga kusoo dhaadhicin dee inay iska masaxaan ba ahayd nadaafadda masaajidka in laga wada qeyb qaataa waa arrin nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiintaa si guud uu faray sheekhaa inoo dhameeyey arrinta ku saabsan masaajidada iyo weyneyntooda waana qodob mudan waktigan oo kale in laga hadlo masaajidada in badan baa qur-aanka lagu sheegay boqolaal xadiid oo magaca masjid ku xusan yahayna waa la helaya taasi waxay muujinaysaa islaamku siduu u qiimeeyey masaajidada culimada islaamkuna horeysi iyo dambeysaba kutub u gaara ayay ka qora hadday tahay fadliga masaajidada dhiskooda joogistooda iyo ku cibaadaysigooda iyo hadday tahay axkaamta ay masaajidadu leeyihin xataa hadda waxaa jira cilmi baadhisyo badan oo lagu sameeyey annawaasil alfiqhiya almutacaliqa bilmasaajid arrimaha soo cusboonaada ee culimadu aanay hore uga hadal ee masaajidada la xidhiidha iyo axkaamta ay leeyihiin ee culimada casrigani ay ka ijtihaadeen oo dadaal iyo baadhis ay sameeyeen xukunkeeda ay ku soo saareen waxaanad moodaa axkaamta masaajidadu ay leeyihiin in badan in la
la moogan yahay oo culimadii wadaadaduna ay u qaateen wax la iska wada garanayo dadka in badanina inaanay aqoon aanay u lahayn waata keentay masaajida meel walba laga dhismay looga baahan yahay meel kale meel cid ku cibaadaystaa ay joogtay meel aanay joogin ilaalintooda safar baan ka yimi berberaan ka yimi maanta jidkaa dhexaan kusoo tukanay aniga oo sheekh maxamed khadar oo ila socday meeshaan ku tukanay masaajid baa ahaan jiray qof muslima cid lacag usoo dhiibay oo waqfistay masaajid kalaa laga garab dhisay kiisiina inta mixraabkii laga jaray tii hore meesha ku yaalay ayaa wax kala laga dhigay garan maayo ma iskuul baa laga dhigay ma wax kalaa laga dhigay sababaa laga sabab keenaysa in masaajid kale meesha laga dhiso kii horena masaajidnimadii laga saaraana may jirin qofkii muslimka ahaa ee waqfistay hadduu arrintaa ogaan lahaana marna raalli kuma noqdeen masaajidka masaajidnimadii laga bedelayaayoo inta mixraabkii laga jaro ayaa iskuul ama madarasada ama meel kale oo hadday doonaan dad ay seexdaan laga dhigayaa qofna arrinta noocaasa ogolaan maayo marka in axkaamta masaajidada iyo qiimaha diinta dhexeeda ay ku leeyihiin la bartaa aad bay muhiim u tahay maalmahan dambena waxaynu maqlaynay dad ka hadlaayey dhalinyaro u badnaayo masaajidada ka hadlayay iyagoo kusoo halqabsanaya dad masaajida jooga iyo khaladaad ay ku arkeen arrinta noocaasina sax ma ay ahayn in khaladka qofka masaajidka joogiyo masaajidka la ysku xidho oo la ysku nabo muslimiintu sax iyo khaladba waa leeyihiin aqoon iyo jahliba sifo waa u noqdaa qofka masaajid jooga wixii khaldan aad ku aragtay isaga uga nasteexee laakiin warkaagu yaan u ekaanin nooc markaa dacaayado masaajidada qofku uu dacaayadeynayo ama arrin ay kaga faaideysan uga faa'iideysan karaan dadka masaajidada naceebi in masaajidada dadka ay ka hor istaagaan ama ay ka firdhiyaan oo ay ka didiyaan culimadu wax kale daa waxay diideen in musaajid la idhaahdo tasgiir in lagu sameeyo masaajid yar baa xaafadayadii laga dhisay masaajid yar baan ku tukaday yartaas oo wax ilaahay weyneeyo ereygaa yar in la daba dhigay xataa diideen kuwa makruuh ku sheegay iyo kuwa idhaahdo waaba gaal qofka idhaahdo masaajid yar fuqahada xanafiyada qaar badanoo ka midi waa gaal bay idhaahdeen laakiin sida saxdii waxa weya in qasdigiisa la eegayo oo hadduu uga jeedo yaraanta masaaxada dhule uu ka dhisan yahay inay in yar tahay inaana de arrintaasi gaalnimo noqonahayn laakiin hadduu xaqiraad uga jeedo iyo quursi iyo yaraysi wax ilaahay weyneeyey qof quursadoo yaraystay oo xaqiree buu noqonaya taasi waa halisteeda ilaah intaa sheekhu uu yidhi baa inugu filan laba qodob oo kooban baan insha allahu tacaala ku darayaa qodobka koowaad wuxuu yahay masaajidku diinta islaamka qiimo badan buu ku leeyahay sida aada maqasheen waxtar badanna waa u leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine markuu soo galay isagoo weli saaran gaadiidkii uu maka ka soo raacay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amar ku bixiyey in masaajidka la dhiso waayo dadka muslimiinta waxay u baahan yihiin meel ay diintooda ku bartaan waxay u baahan yihiin meel ilaahay lagu xusuusiyo oo wacdi iyo waano ay ka helaan waxay u baahan yihin meel khaladaadka lagaga saxo waxay u baahan yihiin meel ay isugu yimaadaan oo ay isku xaal ogaadaan oo ay ku tashadaan oo arrimahooda muhimka ee diin iyo adduunyaba leh abaabulkeedu uu ka bilaabmo haddaanay meeshaasi jirin wax badan baa dayacmaya bartaana nebigu calayh isalaatu wasalaam masaajidka ayuu ka dhigay walihaada shaqadii koobaad ee magaalada madiine uu ka qabtay wuxuu ka dhigay
masaajidka dhisay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam meel beer oo ay lahaayeen reer banu najaar ayuu yihi iga iibiya iyaguna waxay yidhaahdeen ilaahay cid aan hayn ka iibin mayno rasuulka ilaahay macnaa adduunyo dhaafsan mayne ilaahay baan ajar kaga doonaynaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa ka diiday arrintaa culimaduna waxay ku macneeyaan inuu nebigu doonayey inaanay cidina minad gallad inaanay cidina ku yeelan oo hadhow cidina aanay u tar sheegan oo aanay odhan soo nigii dhulka masaajidka ku siinay iyo oo cidina wax gaara aanay kaga doonin xagga dhismahana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ka qeyb qaatay isaga iyo saxaabadiisuba oo gacantooda ayay ku dhiseen masaajidka masaajidku markaa dowr weyn buu ku leeyahay kaalin weyn buu ku leeyahay nolosha dadka muslimiinta kaalintiisa waxaa ka mid a cibaadaadkan maxdigaa ee cibaade ahaan ku barax tiran in dadka muslimiinta ay ku gutaan salaada cilmiga oo lagu barto dikriga qur-aan la akhristo ilahay in lagu baryo subxaana wa tacaala taasi maanta masaajidada ha ku kala badnaatee laakiin asalkeedu waa qaa'im waa mid jiro weli laakiin kaalinta masaajidku nolosha muslimiinta uu ku leeyahay intaa kuma koobna masaajidku wuxuu ahaa markasu tacliim meel dadka diinta lagu baro nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aqoonta u badana dadka muslimiinta uu baray callamahum fi lmasjid masaajidka ayuu nebigu calayh الsalatu wasalaam uu ku baray masaajidada badankoodu maanta waa ka maran yihiin arrintaas masaajidada dhulka muslimiinta ku yaala inay noqdaan goob dadka muslimiinta ay diinta ay ku bartaan dowrka iyo kaalinta masaajidada in loo soo celiyaa waa waajib wey barashada cilmiga lagu baranayo jaamicaadka iyo kuraasta iskuullada iyo madaarista iyo macaahidda taallaa laa tugnii can الtacliimi wالtacalumi fi اlmasjid ma aha mid inaga kaafi karto inagaga filaan karta qofku inuu masaajidada dadka wax ku baro cilmiga ugu dhigo iyo qofku inuu ku bartaba oo in cilmiga shareecada masaajidka lagu bartaa fadiilo gooniya bay leedahay iyo barake gooniya sheekh ibn cuthaymiin raximah اllahu tacaala wuxuu yidhaahdaa alcilmu fi اlmasjidi akharu barakata min xayثu الtaxsiili wالtaأhiir cilmiga masaajidka lagu dhigtaa waa ka barako badaya cilmiga meelaha kale lagu dhigto laba dhinaca marka laga eego xagga xaasilinta cilmigii inaad xaasiliso kuusoo xero galo iyo dhinaca cilmigii inuu saameyn kugu yeesho oo iimaan iyo khushuuc iyo alla kacabsi iyo diin ku dhaqan iyo ku toosnaan uu kuu kordhiyo arrinkaas sheekhu sheegayna waa amru waaqiciyu dala calayhi annaqlu walwaaqicu xadiidka nabiga calayh الsalatu wasalaam ayaa tusisay oo rasuulku wuxu uhi sida muslim wariyey majtamaca qowm fii beyti min buyuut illah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum ilaa naزlat calayhim الsakiina wagashiyathm الraxma waxafathum اlmalaa'ika wadakarahum اllahu fi man cindahu dadku hadday masaajid fadhiistaan iyagoo qur-aan ku akhrisanaya qur-aankii way mudaaraseynayaan way subcinayaan way isu akhriyayaan way isbarayaan afar jaa-isay helaan xasilooni xagga ilaahay kaga timaada raxmad xagga ilaahay ka timi oo kusoo degta malaa'igta oo hareereysa jacayl ay u qabaan iyo weyneyn ay weyneynayaan hawsha ay hayaan ilaahay oo subxaana wa tacaala malaa'igta waa ammaano ha baleega addoommahayga hanii'an liطalabat اlcilm masaajidada fadhiya ee ku sabraya gaar ahaan ardaydeenna dowrada dhigata
todobada subaxnimo intay yimaadaan duhurku dhowaadka masaajidka ka baxa intaa masaajidka fadhiya ilahay waxaan uga rajaynaynaa una weydiinaynaa jawaaista afartaa abaalmarinood hana niyeystaan inay cilmi xaasiliyaan oo qurayaan niyeysan joogista masaajidka iyo barashada cilmiga ay ku baranayaan arrimaha noocaasa inay ku helaanna ha niyeystaan oo ku ixtisaabaan ilahay ha kaga dalbaan ajarka noocaasa marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qur'aankii masaajidka lagu baranayay inuu fadiilo dheeraada leeyahy wailaa maxaa nebigu u yihi calayh الsalaatu wasalaam fii beyti min buyuut illah ilama اجtamaca qowm yatluuna kitaab allahi baa ku filaan lahayd meeshay ku kulmeen inay masaajid tahay buu si gaara nebigu alayh الsalatu wasalaam u sheegay waaqicuna taasuu tusinaya jaamacadda casharkaad ku qaadato iyo ka masaajidku xagga xaasilinta cilmiga isku mid maaha ardayda masaajidda wax ku barata iyo kuwa jaamacadaha wax ku barta iyagoo isku kitaab dhiganaya isku aqoon marna ooma noqdaan kuwa jaamacadaha iyo macaahidda dhiganaya waxaa culimo ka noqday inta masaajidada kusoo baydha kuwaasaa ducaad noqda saameyn yeesha xagga taahiirka iyo saameynta qofka cilmiga masaajidka lagu baranaya uu ku leeyahayna waa mid la dareemi karo masaajidkii markaad soo gasho adkaartii baad akrinaya soo ma acuudu biاllahi اlcaظiim wbiwajhihi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim min الshayطaan الrajiim shaydaankii intaa marka tidhaana markaad masaajidka gelayso shaydaankii baa lagaa ilaalinaya ilahay baa kaa ilaalinaya shaydaankii kuwa iswaasin lahaa ku leexin lahaa markaad soo gasho waa laga taxiyat lmasjid tukato arrimahaasoo dhan masaajidkuna jawi iimaaniya buu leeyahy arrimahaasoo dhan saameyn bay kugu yeelanaya hadday saameyn kugu yeelan waayeen waxba kaa bedeli wayan adig wax kaa siiya waa inaad isdaweyso weeyaan marka dowrka masaajidku uu lahaa ee ku saabsan inuu goob aqooneed noqdo waa in dib loo soo celiyo halka waxa laga yaabaa inay fadhiyaan rag fara badan oo masaajidda imaamiye ka ah ama muadiniin ama ducaad aad jooga xaafadaha masaajidadu ay ku yaalaan dadka muslimiinta masaajidka waa inay aqoon ka helaan maaha inta la tukiyo inay kala dareeraan waa in tawxiidkii lagu baro salaadii lagu baro tahaaradii lagu baro oo uu jiro dersi ay leeyihin jamaacat lmasjid maaha ka ardayda loo dhigayo kutubta waaweyn dersi aada ugu tala gashay dadkan muslimiinta ee masaajidka kusoo tukanaya oo waktigiisu kooban yahayba waa intay qaadi karaan baa yar masaajidka hawlaha lagu qabto waxaa ka mida ama dowrkiisa iyo kaalinta bulshada dhexeeda uu ku leeyahy waxaa ka mida in dadka muslimiinta amraadooda xanuunada diinta kaga dhaca in lagu daweeyo shirkiga lagala hadlo bidcada lagala hadlo xaaraanta loo sheego la baro la dhaa iska ilaaliya waajibaadka ay dayaceen halkaa looga sheego khaladaadka salaadooda ku jira iminka a'imat lmasaajid iyo in badanoo ducaadda ka mida masaajidada waxay ku arkaan dad muslimiin oo salaada khalkhaldaya waxaana laga yaaba inaanay xil iska saarin inay dadkaas salaada baraan waanad ogtay nebigu calayh isalaatu wasalaam ninkii طumaaniinada xasilaada lagu xasilo rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo fadhiga laba sujuud udhexeeya ka tegey salaada dedejinayey salaanta markuu uga jawaabay muxuu ugu xigsiiyey nebigu sixid iyo khaladkiisa inuu sheego irjic fasalli fainaka lam tusalli imisaa qof kaa lamida ama ka daran masaajidada inoogu yimaada waxba aynaan barin waajibkiina saaraa waa dayacnay kaalinta masaajidkana waa dayacnay dadka muslimiinta ahi waa inay isxaal ogaadaan oo qofka jamaacat lmasjid ka mid a marka la waayo waa in la isweydiiyo war hebelmee hadduu xanuunsanayo lasoo booqdo haddii dhibaato kale haysato waxa weeyaan la garab istaago oo walaaltinimo loo muujiyo masaajidku waa inuu noqdo goob dadka xaafadda degani ay isugu yimaadaan ay ku tashadaan
oo danahooda diineed iyo kuwa adduunyo sida amniga nabadgelyadooda iscaawintooda horumarinta xaafadooda inay kaga tashadaan meel hawlaha laga abaabulo oo laga alooso halka ugu muhiimsan weeyaan masaajidku baraka gaarana way yeelanaysaa marka masaajidka hawlaha laga soo bilaabo waqtigii nabigana calayhi salaatu wasalaam saas u ahaa khudbadda jumcuhu masaajidku shardi uma aha sida saxda ah laakiin dee inta badan masaajid bay ka baxdaa khudbadda jumcuhuna dowr weyn bay ku lahayd iyo saameyn weyn nolosha dadka muslimiinta maqaasid iyo ujeedooyinna waa loo sharciyey qofka markaa khudbadaynaya masaajid ka khudbadaynaya waa in khudbadiisu ay noqoto khudbad dowrkii iyo kaalintii masaajidku ugu jiray dadka muslimiinta iyo bulshada mid buuxinaysa waa inay noqoto arrinta noocaasana waxaa laga baranayaa khudbadihii nebiga calayh isalaatu wasalaam khudbadihii nebigu waxay lahaayeen astaamo iyo sifaat gaara bay lahaayeen khudbaddu waa inay noqoto khudbad dadka muslimiintaa qodobo diintooda ka mida lagu barayo waa inay aqoon soo kordhiso maaha inay noqoto wacdi maxdiya waana un tarkiib iyo tarhiib dadka wax fadligiisa loo sheegayo ama wax ciqaaba ka dhalanayo loo sheegayo wax la jeclaysiinayo iyo wax la necbaysiinayo axkaam waa in khudbadaha qaarkood ay noqdaan ama axkaam caqadiya ha noqdaan axkaam xagga caqiida ama axkaam camaliya ha noqdaan oo xalaashii iyo xaaraantiya sidaasoo kale khudbat ljumca waa inay noqoto wacd wax dadka muslimiinta quluubtooda iimaan geliyey alla kacabsi oo aakhiro xusuusiya yudakiruhum billah wabilyowmi alaakhir oo khayrka ay ku jeclaadaan xumaantana ay kaga toobad keenaan ay kaga fogaadaan khudbadii nebiguna taa waan lahay cumuuman qur-aankana haddaad u fiirsato yajmacu bayna alamreyn bayna tacliimi alaxkaam wa wacdi alquluub wa mukhaatabatiha dadka in axkaamtii la baro isla markaana la waaniyo quluubtoodan laga warhayo ile qalbigu wuu sii jeesanayaa futuur iyo wahsi baa ku dhacaya waxbaa dul fuulaya daxal shaqo joogtaa buu u baahanya qofkan dadka u khudbadeynaya ama imaamkan masaajidka joogaa la rabaa shaqada dadka muslimiinta inuu qabto xusuusiyo nebiguna calayh isalatu salaam kaalinta muslimiinta waa u buuxiyey innaguna waa inaan kaga dayano cabdullahi bn mascuud wuxuu yihi si bukhaari saxiixa ku wariyey kaana rasuulu llah yatakhawaluna bilmawcida waana joogtaa ma ahayn lakin bayna alxiin walaakhir marka muddo laga joogaba rasuulku calayh isalaatu wasalaam quluubtooduu la hadli jiray wax iimaan iyo alla kacabsi u siyaadiya aakhiro xusuusiya yuu rasuulku calayh isalatu wasalaam uu kula hadli jiray cirbaad ibnu saarina xadiidkiisa waad garanaysa wacadana rasuulu llahi mawcidatan wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun dacwadda dadka ducaadda ummadda ay ku wajahayaanna waa inay saa noqoto tacliim watargiibu watarhiib tacliimu wa wacdu labadaasoo wada socda nin wadaadabaa wuxuu igu yihi dhulkaas soomaaliu degta meel ka mida jooga dacwad dacawaadka ka mida buu ka hadlayay oo dadka axkaamba aan kala hadal waxaasaa xaaraana ma idhaahdaan waxaasaa waajibana ma idhaahdaan jaanibka wacdiga un iyo tarkiibka waliba xagga fadaaisha ayay manhaj ka dhigteen bes manhaj bay ka dhigteen manhaj saxana maaha kaas waayo qur'aankii iyo manhajkii nebiga fi dacwati ila llahi buu khilaafsany inaad diintii shaamilka aadu in ka qaataa tira intaas aniga iyo manhaja sax maha ya ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa wuxuu yihi dacwaddaa dad fara badan bay saamaysay oy gaadhay oo raacay
haddana dadkii marka tidhaahdo iminka dadkii marka noo waxaasi waa xaaraan yastankiruun aad bay u inkirayaan arrinta noocaasa waayo mabaanaan barin bu hi inaan ku dhaha waxaasi waa xalaal waxaasi waa xaaraan khudbaddii jumco inay taa koobsanayso amraadu naas waa in laga hadlo gaar ahaan waxyaabaha markaa waaqiciga ah ee noloshooda ka dhex jira arrinta odhanaysa khudbadda jumca waa in laga hadlo wixii toddobaadkaa dhacay anigu daliiluma hayo ninkii daliilu haya isaga keeni doona in nebigu calayh isalaatu wasalaam toddobaad kasta wixii toddobaadkaa dhacay inuu ka hadli jiray la khudbadda jumcuhu waa calaa xasabi alxaaja haday dadku u baahan yihin masale in la baro iyadaad ka hadlaysa hadday u baahan yihin mawduuc in lagala hadlo wax baahida dadkaad eegeysa iyo masaa-ishu ay u kala muhiimsan yihin lakiin waxyaabaha qaarkood oo dhacaybaa in laga hadlaba aan mudnayn ama dadka qaarkood siday uga hadlayaan ay khaldayaan oo siday uga hadlayaan aanay ahayn si ay shareecadii ku salaynayaan masaajidku waa inuu amraadu naas daweeyo khaladaadka caqiidadooda ku jira cibaadadooda ku jira akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ku jira waa inuu daweeyo masaajidku dowrkii markaa masaajidku uu lahaa waa in la soo celiyo kaas waa qodobkan ku gebagabaynayo dadka aada bay ugu adag tahay gaar ahaan maanta inay masaajidada dhex joogaan xalqadda cilmiga ee masaajidka lagu dhigayo maalinta la bilaabo iyo maalintay dhammaato isu eg asbaabaha dadkii bilaabay ee u dhammayn waayeen way badantay laakiin kuwa u waaweyn waxaa ka mida u muuqashada badan inuu masaajid fadhiyo waktiga intaa leeg qofku inuu sabir u yeelan waayo salaada marka laga baxana u fiirso dadka inteeba adkaarta akhrista adkaartii salaada dabadeed la sharciyey inteebaa salaada sunaha ka dambeeya hadday sunna bacdiya leeday tukan inteebaa se dareero oo saracaanu naas ah dadka kuwa dhaksaha u baxa in badan baa marka la salaamo naqsadaba kaca way ku adagtay masaajidka inuu sii fadhiyo sababtu waa maxay arrin adduunyuu qofkani ku degdegayaa amaba se naftiisaan sabir u lahayn goobtan qiimaha badan ee fadhigeedu uu cibaadabaya ama qofku cibaado uu ka dhigan karo inuu ku sabro oo wuxuu ka fadilayaa naftiisu ay ka jeceshahay intuu masaajidka ka baxo inuu halkaa istaago saacad u taagnaado ilaa cishayga laga eedaamayo oo sheeko uu wado ma maqaaxi u fadhiisto ama hudheel u fadhiisto marka waxaan jeclaaday inaynu xusuusiyo fadlu luzuumi اlmasjid dhowr xadiida ku saabsan masaajidka in la joogo oo qofku uu noqdo qof sabir iyo dulqaad iyo adkaysi ule joogista masaajidka qofkuna wuxuu u joogaa dee in uu cibaadeysto salaad buu tukanayaa qur-aan buu akhrisanayaa ama wuu dikreeyaa ictikaaf buu niyoonayaa ictikaafkuna waa cibaado sunno ah haddaanu qofku ku nadrin nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu uhi man tawaطana almasaajida liلصalaaةi wالdikr tabashbasha allahu ilayhi fii riwaayati lahu kamaa yatabashbashu ahlu اlgaa'ibi bigaa'ibihim cinda quduumihim ibnu maaja wariyey man tawaطana almasaajida qofka masaajidada wadan ka dhigta macnaa meel qofku wadankiisa meeshuu degan yahay in badan buu joogaayo wakti badan buu ku qaataa soo ma qofka masaajidka joogistiisa badsada ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku qaabilaa weji furnaan taasoo ka dhalatay ilaahay inuu raalli ka yahay qofkaas wuxuu samaynayo isla markaana uu jecel yahay riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi min xiini khuruuji min beyti
arrintaa ilaahay wuxuu u bilaabaa qofkaas markuu gurigiisa ka soo baxo marka arrin ilaahay kugu jeclaanayo raalli uu kaaga noqonayo wey inaad masaajidka ka wadan dhigato macnaa joogisiisa aada badsato xadiidkii kale saxiixii ku jirayna waa kii sheekhu inoo akhriyey warajulu qalbuhu mucallaqu bilmasaajid waa isku mid oo qofkani masaajidka imaanshihiisa iyo joogistiisuu badsanaya taasaa laga cabiray sidoo qalbigiisu sida laambada uga soo laalaado masaajidka arrintaasina sabir iyo mujaahaday u baahan tahay in lagu sabro oo nafta lagula dadaalo ilaa ay la qabsanayso markaad salaada tukato aad iska sii fadhido tadkuru llah markaad salaaddii faralka ayd ka baxdo halkii haddaad fadhido adoo ilaahay xusaya nebigu calayh isalatu salaam muxuu inoo sheegay malaa'igtu inay qofkaa ku saliyayaan u ducaynayaan ilaahay dembi dhaaf weydiinayaan la mid maaha kii intuu tukaduu ka baxay salaaddii markiiba iska baxay albaabka boobay waxay arrintaasi ka mid tahay camirista masaajidada ee sheekhu uu ka hadlay oo mid muuqato ah in la dhiso in la qurxiyo anigu odhan maayo in la dhiso masaajidada iyo mid la fahmi karo oo ah in masaajidkii lagu cibaadaysto ilahi subxana wa tacala wuxu uhi inama yacmuru masaajid اllahi man aamana biاllahi walyowm اlآkhir وaqama الصalaaةa وaata الزakاة walam yaksha ila اllah facasa ulaaئika an yakun min almuhtadiin laba arrimood baa qofka masaajidka camiraya ilaahay subxana wa tacala u ballan mid uu uga markhaati kacay midna ilaahay u ballan qaado horta iimaan buu ilahay uga markhaati kacay man aamana biاllahi walyowm اlآkhir macnaa aliimaan alwaajib qof la yimi iimaankii ku waajibay ayaa sidaas sameeya midna ilaahay waa u ballan qaadayoo waa alhidaaya ilahay inuu hanuuniyo facasa ulaaئika an yakunuu min almuhtadiin marka iimaanna waa lagu helayaa hanuunna waa lagu helayaa xidhiidh qoto dheer baa ka dhaxaynaya malaa'igta aynu garanayno khayr mooyaane shar inaanay lahayn laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun khayrun ka shaqaynaya iyo awaamirta ilahay inay fuliyaan iyo qofka masaajidka joogistiisa badsada imaamu axmed wuxuu musnadkiisa ku wariyey nebigu calayh الsalaatu wasalaam inuu yihi ina lilmasaajidi awtaadan masaajidadu waxay leeyihiin qodimo watad waxaa la idhaahdaa shayga shay kale dhulka ku xejiya waxaynu ka fahmi karnaa tusaale ahaan shiraaca guryaha dusha laga saari jiray guryihii miyiga manaa qori afkiisa markaa la qoroo la dhuubay ayaa dhulka loogu taagi jiro xadhigga lagu xidhi jiray taandhooyinka iyo khaymaadka saasoo kale xadhkaa loogu xidhaa qodimo sooma marka masaajidadu qodimay leeyihin qodimo maxaa looga jeedaa dad baa laga hadlaya macana waxa weeye watadku waxaanuu xejinayo uu laazimaa haddii isaga la waayo dee dhismahaas wuu dumayaa sooma ama shiraaca iyo taandhada dabayshaa qaadaysa marka masaajidkay laazimaan weeye oo joogistiisa aad ay u badsadaan almalaaئikaةu julasaauhum buuri nebigu alayه الsalatu asalaam kuwaas cidda ay wada fadhiistaan ee la joogta waa malaa'igta in gaabuu yaftaqiduunahum haddii masaajidkii ay ka maqnaadaan malaa'igta waayeyso baadi doonaysa ninkii hebele halkaa ku tukan jire masaajidka laazimi jiray xaguu qabtay bay odhanayaan malaa'igtaa isweydiinaysa baadidoonkiisay gelayaan allahu akbar wain mariduu caaduuhum hadday xanuunsadaan malaa'igtaa booqanaysa
gurigiisii ama dhakhtarki iyo meesha uu jiifa ayay ugu tegayaan. wain kaanuu fii xaajatin acaanuuhu, haddii ay baahi iyo dan leeyihiinna malaa'igta caawinaysa. marka bal u fiirso, masaajidkoo joogistiisa la badsado, lagu sabro, bal waxaa lagu helaya adigu u fiirso. wax weyn baa lagu helayaa. qofkuna markaa naftiisa wuu bari karaa. marka hore arrin nafta ku culus wey, laakiin arrin kastoo nafta ku culus waa lagu layli karaa. sida ilahay uhi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin. jazakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum. alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli